waxaan codsanaynaa in eedeysane Sayid Cali Macalin Daawud ay maxkamaddu ku xukunto dil toogasho ah oo ah qisaasta marxuum Luul Cabdicasiis oo uu nolosha ku gubay. dambi aan lahayn mudan garsoore yaa dusha la iga saarin maantay inaan mudan garsoore eedeysane noqdo xaaskii lagu tilmaamay inaad dilay oo wuxuu Ilaahay qoray si xaraga leh ayaan u soo gudbinay waxaan rajaynaynaa in go'aankaas asaga macnaha codsiga aan soo gudbinay ay maxkamadda naga aqbali doonto. eedeysane Sayid Cali waxa uu ka sheegay maxkamadda horteeda inuu dab ka kacay gurigaas. waxa uu sheegay inuu buuq jiray xilligaas waa sidoo hadalka u dhigay. waxa uu sheegay inaan asaga dhaawac soo gaaray aan lagu mashquulin ee lagu mashquulay dhimashadii marxuumad Luul Cabdicasiis ama Luul Cabdicasiis. maxkamadda racfaanka gobolka Banaadir ayaa maanta soo gabagabayn doonto kiiska eedeysana Sayid Cali Macalin Daawud oo horay maxkamadda gobolka Banaadir ay ugu xukuntay dil toogasho ah balse racfaan uu qaatay ayaa maxkamadda racfaanka waxay dhageysatay tiro 3 jeer iyadoo la dhageystay qareenada cadeymaha xeer ilaalinta iyo markhaatiyaashii goobjooga u ahaa dhacdadan. dambiyeedkani eedeysanaha dhaar kadib wuxuu cadeeyay in uu gubaayay qalab ama furniture marka rabitaan qof in lagu waxyeeleeyo bataatanba meesha ayada ah ma joogin. sababtu waa maxay? xilliga uu sameynayo ama uu gubayo alaabta ee uu horena u sheegay ee uu yiri alaabtaydan gubana alaabtiisay ahayd alaabta uu gubay. waxaan codsanaynaa in eedeysane Sayid Cali Macalin Daawud ay maxkamaddu ku xukunto dil toogasho ah oo ah qisaasta marxuum Luul Cabdicasiis oo uu nolosha ku gubay. maxkamadda racfaanka gobolka Banaadir ayaa maanta mudaysay in kiiskan gabi ahaanba la soo gabagabeeyo. waxa uu noqon doonaa mid ka farxiya ehelka Luul Cabdicasiis ama Sayid Cali Macalin Daawud oo ku eedeysan inuu gubay xaaskiisa isla markaana ay geeriyooto iyadoo uur leh. maxkamadda waxaa soo xaadiri doona gudoomiyaha maxkamadda racfaanka, qareenada u doodaya iyo ehelka Luul Cabdicasiis iyo bulshada qaar ee magaalada Muqdisho. in lagu been abuurtay awgeeda xukunka racfaan ayaan gudoomiye ugu qaatay xaaskiisa iyo carruurtiisa dilay ma jiro waxaa lagu tilmaamay in xaaskiisa iyo carruurtiisa dilay sidaa awgeed oo qof maxay ahayd lagu magacaabay qof dilaa ah dambigiina aan geysan sidaas racfaan uga qaatay waxaan halkan u imaaday in cadaalad helo. xasan cali aadan danan TV Muqdisho. ogeysiis farxad leh haddii aad joogtid dalalka Yurub xawaalada Galaxy Transfer waxa ay free ka dhigtay dhammaan lacagaha lagu diro Premier Wallet iyadoo ku gaaraysa daqiiqado gudahood. ka faa'iideyso fursadan oo lacagaha ugu dir Premier Wallet ehelkaaga iyo dadka jecesha.